bulshada waxaan ka codsanayaa inaan la nashiidin inaan guryaha lanaga kiray waayo oo lanaga daayo takoorka iyo dhibaatada baabuurtii baa na soo qaadi weysa qof maanta shahaado caafimaad ilaahay ka sita oo odhan kara aniga HIV iguma dhici karo qofkaan caqli wanaagsan lahayn inuu isagina yidhaahdo adba lagu takooro u qariyo intaasoo kale qof galafto marka dowladda Somaliland waxaan ka codsanaynaa dowladdu markaad aragtaan qof xanuunkan qaba ama lagu sheegay bartiisu adigu isdhig adiga sidee jeclaan lahayd in laga yeelo marka sidii adigu aad jeclaan lahayd in laga yeelo qofkana ka yeelo dadweyne qofka xasanay qoori sidii bii wuxuu haddii aan ka helo maxaad samee xanuun sida u sii halis ahoo mar haddii waqtiintii dawooyinka la helay dilaa oo sida xanuunada kalena maaha xanuuno badan baa ka dilaasan oo dadku la wada nool yihiin oo lagu socdaa oo lagu shaqaysanaya waxaa jira xataa macallimiin iyagoo macallin oo tamaashiir sita in lagaga eriyo shaqada oo lagu yiraahdo adigu HIV positive fatay si toos ah waliba maamulkiisa ugu yiraahdo oo xayo oo jiro oo jooga oo hadhow kadib aan la wadaagi doonaa agaasimahayaga oo inta laga saaray waqti bay marka qofka dawladda uu shaqeeyo waa qofka dawladda uu shaqeeyo ha hay'adda shaqaale ka duwan gashay marka xanuunka laga helo culays baa ku yimaanaya hadduu bayralka ku jiro weeyaan haddii aanu ku jirno automatically shaqadu kaga baxay marka laba qof bay u qaybsadaan laba fuquuq goobaha waxbarashada kaga yimaada xataa iyaga kaliya maaha ubadkooda la takooro oo laga eriyo goobaha waxbarashada maxay ahayd qofkan inaan ka qaadi karay in qofkan wax meel kula cuni karayo inaan salaami karayna sraaci karayno in maxay ahayd meel ku wada noolaan karayno waxyaabahaas oo dhan bulshada waa in laga dhaadhaciyo kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastood caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka dood abuur oo toddobaadkani aanu ku soo qaadan doono faquuqa ay la kulmaan dadka la nool xanuunka HIV/AIDS dooda ama barnaamijka dood abuur caawa waxa igala qayb qaadanaya aan ku bilaabo dhinacayga midi Dr. Ismaaciil maxamed ay agaasimaha komishanka AIDS-ka waxa isna ku xiga aan iraahdo Mustafa Dubad oo ka socda guddiga xuquuqul insaanka qaranka sidoo kale waxa ku xiga Sharmaarke Cabdi Cali oo isna ka socdaan iraahdo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland dhinacayga waxa fadhida Amira Cabdixakiin Yuusuf oo ka socota Waybir ururada bulshada rayidka ah nimco iyaduna ka socota nimco Axmed Jaamac oo iyaduna ka socota komishanka xakamaynta iyo mid kamida dadka iyadu la nool xanuunka barnaamijka dood abuur ee caawa waxaanu ku soo qaadan doonaa faquuqa ay la kulmaan xilliyada ay tegayaan goobaha shaqada iyo sidoo kale marka ay tegayaan goobaha caafimaadka si aan arrintaasi wax badan aan uga ogaano barnaamijka dood abuur ee caawa ayaad ku daawan doontaan aan ku bilaabo dayrinta qoyska intaanaan u gudagelin bal muuqaal ayaan halkan ka shidi doonaa isla markaasina ay si guud aynu u wada daawan doono mar kale aan idin xasuusiye waxaa iyaguna goobta nagula sugan ardayda jaamacadaha Somaliland wax ka dhigta oo iyaguna qayb ka noqon doona barnaamijka dood abuur ee maanta isla markaasina aad uga daawan doontaan telefishinka MMTV muuqaalka ayaynu sii dayn doonaa kadib su'aalaha ayaynu gali doonaa darkayga ga dhaxyaa walaalahay markii loo sheegay ay bartiga ga dhaqaaqay anoo inanka xanuunsanayana haysta si kasta hadaan xanuunsado salaamu calaykum layma soo dhahay hantidii aabahay anigoo nool baa layidhi wuu khalaas uu dhintay soo raacay oo la wareegay odayrkii aabahay walaalkii rumi la wareegay iga qaadana ilaahay dartii waan ku soo wasqeeda iyo wasqeeda la noolda waxaan ahay dadka la nool xanuunka HIV/AIDS-ka muddo 15 sanadood ayaan ku la noolaa intaana istigmada aad waxyaalo badan ma la soo kulmay istigmo fara badan qoyska qofka islaamigaaga hadduu ka ogaado waxa laga yaabaa inuu ku eriyo oo magaalada ugu tagto qofka markii isagoo HIV qabo faamigiisa eriyo bulshadina uu takoor kaga yimaado waxa laga yaabaa inuu qofkaasi dawadiisa joojiyo oo dhismaar ku dhaco halka dawada ku joojiyo marka waxa ku dhacaya inuu dawada joojiyo aad ka dhimitid boornaa qofkaas in la yiraahdo faamigi hantidii Allah in laga qaado oo la yiraahdo uu dhintay ninkan khalaas bi xanuunka soo laga helay dhibaatooyin badan baan kala soo kulmay haddana waxa weeye ilaahay baan ku sabray wax walba ilaahay baa keena xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena
layska ka ilaaliyo markaad u timaado laydhaa cuntadii iyo gurigii layska ka ilaaliyo sidaad qofkii qaasiinayso shaqan laguma qofkuna ku takooraya xitaa sidii lagu ixtiraami jiray marka hore laguma ixtiraamayo waxaa lagu arkaya qof dhayna u dhintay baa lagu arkay dhibaato badan baan soo maray alaankaana cidi kalama xidhiidho faamiliga lamana soo xidhiidha waa tahay ujeeddada in muuqaalka u baleegarayno ama aan u shidnay waxay tahay in aynu fahanno waqtiyada ee dadka la nool xanuunku ay dareemaan ama culayska ay dareemaan ay ka dareemaan qoyskooda marka ay xaaladda lagu sheego xanuunkaasi inay qabaan agaasimaha ayaan ku horeynayaa ma jiraan wax ay dowladdu samaysay oo xaaladan lagula tacaalayo marka qofka laga helo cudurka culays badan ayaa kaga yimaada dhanka qoyskiisa ma jiraan tallaabooyin ay dowladdu u qorshaysay oo la qaado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta runtii haddaynu xanuunkan in yar eegno de horta xanuun inagu cusub maaha wadaweynuhu caalamka 80-nadii horeantoodiibu kusoo bilaabmay xanuun sidaa usii halis ahoo mar haddii waqtiintii daweynka la helay dilaa oo sida xanuunada kalena maaha xanuuno badan baa ka dilaasan oo dadku la wada nool yihiinoo lagu socdaa oo lagu shaqaysanaya laakiin muhiimaddu waxa weeye psychological dadku waxay aaminaan iyo horta mushkilada waxaa jira dadkii 80-nadii koobiso dadkii ugu horreysay laga helay caalamka ayaa weli nool marka ma odhan karno xanuun dee mar haddii dawadiisa dawi jirto waa dilaa degdega ma odhanayno xanuuno badan oo ka khatar badan baa jiro dilaa oo kuwa maanta chronic diseases ka mid yihiin macaan ka mid yahay waxaas ka wada mid yihiin karka kansarka mushkiladaha yaallo oo dhan ayaa horta ka riski badan waxaan qofku la noolaanayo weli aan la gaarin in uu qofku ka bogsado unaanu gaarin laakiin dee la noolaanayo noloshiisa lagana yaabo weliba in la gaaro tallaabadan la gaaro in laga bogsado in la gaaro weliba rajo badan maga qaba in mara badan waa dhahdaa markaan ka hadlayo rajo badan maga qaba in la gaaro in laga bogsado xagga faquuqa wato xanuunkani markii hore wuxuu inagu soo galay markii la ogaaday markii hore waxaan ka qaadanay fikir aad iyo aad u qaldan dadku waxay aamineen markaaba in qofkii ku agnoolaadayo qofkuu taabtay iyo qofkuu salaamay iyo qof walba ay qaadeen bay aamineen sida kaan dani waxay u aamineen oo ina gashay xanuun si xanuun lagu qaado inuu yahay taasi waxay keentay markaa in labada dhinacba notma xagga bulshada weyn xagga dadka nool markaad eegto iyo xagga bulshada markaad eegto labadaba mataqaanaa cuqad ku noqda kana cuqad ku noqday kuwana mataqaanaa inay waxay ay qaadayaan ku noqday marka xanuunkii waxa loo turjumay inuu xanuun ceebeed yahay yani xanuun ilaahay ka yimid ma saasoo la turjumay sida keliya horta mushkiladda ay ku jirtaa waa siday wax kale maaha maanta waad ogtihiin dadka mataqaanaa markii daawooyinkii loo keenay oo free ay ku haystaan way ka xoog badan yihiin dadka kale caadiga caafimaad qaba waa dad caafimaad oo healthy ah taa lafteedu waa tallaabo la qaado ee dowladdu qaaday qofkii in la tacaalo caafimaadkiisa lala tacaalo waxaa kaloo meesha jira iyadana oo dee mar walba socda barnaamijyo wacyigelineed inkastoo aanan isleehay sidii la rabay weli uma fulin oo dee innaga markaan kasoo dhowr iyo 9-aadii markii laga soo bilaabay ilaa maalinka aan maanta joogo inuu weli faquuqii sii jiro weli waxbaa dhiman يعني قابك أنا وجهي نيو أود أن قلني ولي وحبا دمان waxaynu u baahanahay markaa taasi way jirtaa waxyaabo badan laga qabtay way jiraan wax badan oo dhibanina wuu jiraa horta waxyaabaha la qabtay waxaa ka mid ah in marka horse in horta dee dadka la gaarsiiyo wacyigelin badan la sameeyo oo dadka la baro waxa inaanu mushkilada hayn saa u haystaan aanu hayn dadka laftiisa la noolna inaanay siday u haystaan aanay hayn iyaga laftarkooga lagu dhiirigeliyo inay dadka bulshada ka mid yihiin taasi waa mid laba dhinac inaan ka eegna weey qofka dhibta isaga soo gaaraysa iyo qofku dhibta uu gaarsiinayo bulshada labadaba in la eego iminka markaan eegno dawooyinka la siiyey dadka waayadii hore waxa laga qofku muddo kooban inuu ku xanuunsado dhulyaal noqdo hore oo dhinto adii kala dhulyaal noqdo tamar yeesho laakiin qofkii wuxuu ogeysanayaa uu qurux badan yahay wax walba uu qabanayaa haddii aanu markaas qof mas'uul aanu hayn waxa sii kordhaya baafintii bulshada dhexdeeda ku faafinayay markuu hadduu 30 sano 40 sano la noolaado intaaba mushkiladii way soconaysaa waa hadduu qofku aanu fahamsanin wuxuu qof mas'uul isagu hayn bulshadiina weli
halkiibay ka haystaa waxay leeyihiin qofka markay maqlaan magaciisa way ka fogaanayaan waxyaabaha ugu badan imika laga kulmay wax intaan yaran muddo kooma joogo horta meesha dadka aan la kulmay waxaa ka mid ah in xitaa dadkii ka cabanayaan shaqadii waa lanoo diiday markaan la qaado waxaa laga qaadayaa dhiig hay-adda shaqaalaha ka qaada waa lanoo diiday waan kontaadgareeyey iyaga waxay yidhahdeen waxaas kabo dadku shaqaalaha unbaa si guud looga qaada oo caafimaadkooga loo eegaayo wax gaaroo taargado iyaga iyo haddii laga wax laga reebayaa midna ma jirto saasay igu yidhahdeen laakiin dadku waxay ku andacoonayaan marka la ogaado inuu qofkaas xanuunkaa qabo in shaqadii laga saaro hadday public tahay iyo hadday bareefa tahayba waa dacwadda iyagu ay qabaan ama not sure qoladaan weydiinay way difaacayaan ma jirto arrinkaas si kastaba haato meeshan horta de waxaa muhiima in horta xeer iyo acting yaa jiraan in loo sameeyo wuuna dhamaystiran yahay actingna ansixintiisa la sugayo kaasi wuxuu noqonaya xeerkii difaacayay iyagana difaacayay qabanayeyna marka dadaalku ma yara laakiin waxaan isleeyahay weli naguma fila anaa ka markhaati qayn inaan ugu filayn amiiraan kusoo dhaweynayaa way biir baad ka socotaa ururada bulshada rayidka ah ee dadka xanuunka laga helay inta badan culays badan baa soo wajaho dhinaca qoyska maxaad nooga sheegi kartaa culaysyo badan baa qofku markuu factor yahay IDs-ka uu qabo jira kow waa midaan wada ogsoonay koobaado ah in qofkii markuu familigiisii markaaba inuu infected yahay qofkii la ogaado in laga takooro familiga dhexdiisii qofkii marka laga takooro waxaa imanaysa bulshadii ku xeerneyd in iyadana laga takooro waxyaabahaasi waxay u dhacaan sababo la tacalluqa wacyigelin la-aan bulsho waxaan odhan karaa anigu waxaan u aaneynayaa dadka u xil saaran ama guddida commissionka inayna jirin wacyigelin si loogu talagalay oo bulshada lasoo gaarsiiyey dadkan waxyaabo badan bay u baahan yihiin qofku markii xanuunkii laga helo lagu dhahay infected baa tahay qofku soo fasaxaya waxay sheegaan commissionku in 3,500 qof ay qabaan xanuunka oo baaritaan lagu hayo Soomaaliland gudaheeda 1,710 qofna ay dawada qaataan inta kale waxay u qaadan waayeen waa takoor bulsho ha noqdo mid family ama ha noqdo mid bulshada dhexdeeda ay la kulmayaan waxyaabahaasina waxaan odhan karaa waxyaabaha gaabiska inaga inagu jira ka commission ahaan iyo wasaaradda caafimaadka labaduba ay ka gaabiyeen to bulshadeenu ma taqaano xanuunka laftarkiisa xanuunkan inuu yahay mid aan la isku gudbin karin qofkan waa inuu aamino marka hore laga dhaadhiciyo xanuunkan inuu 30 sano cimrigiisa inta ka dhimo qofkan uu la noolaan karayo xanuunkii laakiin se haddii qofkan aanu aaminsanayn oo maskaxiyanba ka dhaadhacsantahay inuu imika dhimanayo dawana ma soo doonanayo markaa number 1 waxaan odhanayaa wacyi sidoo kale waa in bulshada dhexdeedana wacyigelin la sameyn karo oo qofkii bulsho anigoo kale waa in la sheegi karo ani maybe inaanan garanaynba maxay ahayd qofkan inaan ka qaadi karay in qofkan wax meel kula cuni karayo inaan salaami karayna israaci karayno in maxay ahayd meel ku wada noolaan karayno waxyaabahaas oo dhan bulshada waa in laga dhaadhaciyo waa in qofka loola dhaqmo si personal qof ala shakhsi caadiya oo qofka aan factor ka hayno halka asaasan warka way nimco soo dhow waan dhawaay walaal dhamaan aad baan salaamayaa marti sharafta iyo MMTV ba waan idinka mahad celinayaa أنا waxaan ka socdaa waxaan ahay madaxa wicitaanada commissionka HIV/AIDS-ka iyo la talinta dadka xanuunka la nool iyo kuwa aan la noolinba aniga waxaan soo wacaa waxa weeyaan bulshada laba qaybood oo is og mid waxa weeye mid HIV positive iyo mid negative iyo mid aan isba ogeynba oo wali gaadhinba isna baadhinba waxyaabaha badan ee igala hadlaana stigma discrimination stigma waxa weeyaan saddex qaybood ba ka timaadaa mid waa self stigma oo qofka marka lagu sheego xanuunkaba naftiisu oranaya tolma lagu arkayay macid baa kula socotay midna waa mid bulshada kaga timaadaa familigiisa qoyska marka lagu ogaado inta badanna uma bislin inaynu inagu isbaadhno oo aynu tagno qofkii oo xanuuno kale laga soo baaday oo sheekh loo geeyay oo shariif loo geeyayba marka dambe soo dhaco la keenaa markaana isaga si toos waxba looguma sheegay familigiisa waa loo sheegaa oo la oranayaa qofkan xanuunkaas uu qaba amniisooga ama hooyo foolanayso xilligii foosha ku jirtay oo xil adag ku jirta ayaa la oranayaa ma ogeyd inaad xanuunka qabtay waxba kama taqaano marka xanuun qisooyin aad u badan ilaa 2008 ilaa abtanoon uu ku soo dhex jiray haddii aan isla soo koob ama sheeg qisooyinka aad kala kulanteen dadkaas dhinaca marka qoyska qofka laga helo culaysyada uu dareemo adigu maxaad ka ogtay
horta xanuunkan bulshadeenu inta badan uma bislaan waay sida ay TB-da maanta u barteen uma yaqaanaan waana wacyi la'aan waxa aan ka ogahay familiga dhibta ay geystaan waxay soo martay waqtiyada ka qaad hooyo iyadu xanuunka laga helay aabihiina waa laga helay tira aabihii last time uu dhintay isagu hooyadii baa soo hadhay hooyadii ubadkeegii baa lagala hadhay maadaama adigu xanuunsanayso iyadii gaar baa la iska saaray waxa la yidhi waad dhimanaysaa adigu halku ninkaagii maraad maraysaa ubadkii baa laga saaray dabeetana iyadoo hooyadii baa cidla loo saaray hooyadii guri ay ku hooyato male cid ay ku soo hirato kala male waay cid ay ku hiran leedahay ubadkeega ugu dhawaa ubadkiina waa lagala hadhay saygeega u dhawaa saygeegina ilaahay baa qaatay yacni haddii ay bulshadu ogaan lahayd xanuunkani wuxuu ku gudbo iyo waxaanu ku gudbin lagama yaabo inay saamala u fogeeyaan hooyadaas sida ay u silcaysay kolna ubadkii u daba socotay kol yacni wax ilaahay abuuro waxa u oohin xun baa la dhahaa fiinta yacni sida fiintay u ooyi jirtay dariiqyada Hargeysa kolba waan soo qaban jirnay dawo way ka tagtay yacni wax walba way ka tagtay last time way dhimatay markaas haddii aan idhaha maanta aad ka sheekee yacni qaamuus dhan haddaan ka qoro xataa ma ka qori karo qisooyinkan la kulmay waa kuu soo noqon doonaa sharmaarke cabdi cali baan soo dhaweynayaa markan goobaha caafimaadka gaar ahaan waxaad ka socotaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland weliba isbitaalka saad ii sheegtay waxaad joogtaa qaybta shaybaarka marka laydiin keeno dadka xanuunkana laga helo sidee ayaad ula macaamishaan bismi illaahi raxmaani raxiim magacayga mar kale aan ku celiya waa sharmaarka cabdi cali waxaan ahay dhakhtar ku shaqeeya HIV TB confection labadaba kana tirsan wasaaradda caafimaadka caadiyan dadkan xanuunka la nool marka naloo keeno ee noo yimaadaan dhowr jaranjaray soo maraan ugu horreyn marka noo yimaadaan waxaa loo sameeyaa la talin caafimaad baa loo sameeya counseling loo yaqaan afka qalaad counselingka marka loo sameeyo baaritaanka loo diraa marka counselingku waa mid ka horeeya iyo mid ka dambeeya kaa ka horeeya markaan u sameyno hadduu qofku negative noqdo ma sii deynayda lafteeda waayo dabcan qofka duruufaha halkan keenay ku kalifiirus baadho waxaan markaa u sameynaa waxa loo yaqaana risk reduction counseling mar labaadka suu behaviorkiisu bedeli lahaa amba uga fogaan lahaa khatarahan ayaanu u sheegnaa haddii lacala uu positive noqdo oo shaybaarkiisii positive noqdo ka soo baxaan xilligaa waxaan u sameynaa mar labaad la talin counselingka labaad waxay yareysaa waxa loo yaqaano self stigmada oo in isagu qofku naftiisa uu ka shakiyo ay aad u yareysaa waxaan qofku u sheegnaa xanuunka siyaabaha lagu kala qaado siyaabaha loo noolaado had iyo jeer markuu qofku xaaladada galo waxaa la yidhaahdaa afka qalaad give truth and give hope runtana u sheeg qofka xaaladda jirta rajadana sii marka anagoo halkaa rajadan uga amba qaadnaa inuu xanuunkan yahay xanuun dawo leh inuu yahay xanuun loo noolaan karayo inuu xanuun yahay ayba ka khatarsan yihiin xanuunada caadiga dadku la nool sida dhiigkarka macaan kuwaas ka khatar badan yihiin hadduu qofku markaa dawadiisa laasimo si fiicanna u qaato noloshiisu sidii dadka kale u nool yihiin ayuunbuu la mid noqonayaa mustafa dubad baan markan soo dhaweynayaa guddiga xaquuqul insaanka qaranka sidaad u aragtaa in qofka marka xanuunka laga helo in dadkiisii ay ka fogaanayo qoyskiisii ay fogaanayaan dabeedna qofkii ay ku kalifisaba inuu noloshii noco bismillahi raxmaan raxiim horta komishan ahaan anagu waxaan u aasaasannahay ilaalinta xuquuqda aadamaha ee muwaadiniinta weliba dadka nugul ayaan aada ula shaqeynaa dadka la nool xanuunka waa dadka ugu badan ee noogu yimaada xafiiska ee soo gala kiisaskooda iyagoo takoor iyo faquuq loo geystay ka cabanaya laba qaab bay xafiiskaygana ku yimaadaan kow xafiisku wuxuu sameeyaa kormeer joogtaa kormeerka waxaan ku tagnaa goobaha dadka lagu haya xabsiyada saldhigyada ilaajyada meelaha iyo meelaha dadka nugul degan yihiin sida IDP-yada iyo goobaha kale ee dadka nugul degan yihiin labada goobood markaan kormeerka ku sameynayno waxaan ugu tagnaa dad la nool xanuunka oo faquuq lagu hayo iminka xabsiyada oo kaleeto markaan kormeer ku sameynayno xabsiyada waxaad ugu tegaysaa qof xanuunka la nool qofkaasi laba arrimood buu la kulmayaa kow horta waa la takooraya oo dee waad aragtaan xabsiyada nooma dhisnayn qof walba uu meel ku noolaado keligii ama laba qof dee hool yar baa lagu xiranayaa dhowr 10 qof 20 qof 30 qof
marka waa la takooraya markuu halkaa ku dhex jiro kow marka labaad adeegii caafimaada u baahnaa dadkaas ma helaan waa arrin labaad labada arrimood baa ku dhaca qofku markuu xidhan yahay oo halkaa waanu kusoo ogaanaa ama dawo ku filanba ma helaanoo waxa laga qofka inay ka gogo'do ama aanay gaarsiin kiisas ugu dambeeyay markaanu kormeer ku tegaynay waanu reportkayga waanu kusoo dari doonaa waan kusoo aragnay dad badan oo ka cabanaya dawooyinkii waan la gaarsiin waxaa kaloo jirta qaab labaad oo xafiiskaygana ay kusoo galaan oo ah in cabasho ku yimaadaan qaab cabasho ah iyagoo markaa ka cabanaya takoorkii iyo faquuqi marka waxba u aasaasan waaxda cabashooyinkii adeega sharciga la yiraahdo waaxdaas waxay qaabilsan tahay in dadka iyo dadka la midka ah cabasho la yimaado xafiiskaba in la taageero cabashada ay dadkaas soo gudbistaan waxay salka ku haysaa dhowr arrimood kow faquuq dhanka bulshada kaga yimaada laba faquuq goobaha waxbarashada kaga yimaada xataa iyaga kaliya maaha ubadkooda la takooro oo laga eriyo goobaha waxbarashada faquuq kaga yimaada goobaha shaqada goobaha caafimaadka waliba dadka caafimaadku waa dad fahmaya xanuunkan iyo noocu yahay laakiin bulshadii ay la wada isticmaalayeen adeegga wada qaadanayeen ayay kala kulmaan dee faquuq dad arrin noocaas ka cabanaya ayaa xafiiska soo gala anagu waxaan u wajahnaa dhowr qaybood baan u wajahnaa hadduu cabashadu ay toos u timaado oo xafiis ahaan anagu service provider ma nihiin oo adeeg ma bixino laakiin markaanu xogta helo waxaan la wadaagnaa hay'adii khusaysi aanu geynay tusaale kale qofku hadduu iminka jeel ku jiro oo aanu dawadii haysan wasaaradda caafimaadka kala loo report garanaya referral baa loo sameeyaa loo report garanaya tusaale kale marka haddana qof baa soo gala xafiiska caruur baa badan oo kale noo timaado oo waalidkood wadaan oo ka cabanaya in goobi waxbarashada laga soo saaro kuwaas oo kale waxaan la macaamilaa qaabo inaanu iskuulkii warqad u qoro ku amarno in caruurta lagu celiyo haddii uu amarka qaadan waayo in wasaaradda la geeyo qaybta gobolka iyo degmada looga yeero iskuulka halka processka loo maro marka qaab noocaas ah team dhan baa u dhisan oo follow up ku sameeya kiisaska noocaas oo daba gala mawduucaasi qaybta dambe ayuu inoogu jiraa oo ku soo qaadan doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah hooyooyinka iyadoo xanuunka la nool markii xanuunka lagaa helay maxay dhibaatooyinkii kugu waaweynaayeed la kulantay noloshaada السلام عليكم ورحمة الله. أنا يا حبيبي صغير على هذا. جماعة. أنا قلبي كوني شنتي بالي أنا. مكان هوي أنا. مكان كيجي أنا كلا تغني عندي بقول نقول. دبيته قبل كنيسة قرص نسونا. مكان أنا جو حاملة. هي هذا بتشاركي وحي برجع حافظ أنا تجينا تروي ورمي. dabeeto waxaa la igu yidhi ninkaaga waa xaasaa lagu xamin jiray bal hadda isbaadh marka anigoon cidna la tashan ayaan anigu dhakhtarkeeni doctor maxamed yuusuf nin odhan jiraa fadhii jiray qaybta dabeeto waan isbaadhay waxay igu leed qurux badan tahay maxaad iska baadhataa waxaan ku uri ninkaygii baa lagu xantay dee waanu kala tagnay dib baan ugu noqday gabadhigii dambaysu guursaday way kala tegeen deexaan baan maqlay inaan naftayda la socdaan doonaya dabeet adigu dhowr jeer bay celceliyay maalintii dhammaan waxaan ku dhihi ma celin kartid aniga isku kalsoonay baan dabeet wuxuu igu yidhi qof soo kaxays una soo kaxaysanaya ku yidhi sidii bi wuxuu igu yidhi haddii aan kaa helo maxaad sameyn dee tiirka ilaahi baan cuskadaan ku yidhi waxba ma samayn karaba sidii bii ku baadhay sidii bii kaga helay dee sidii baan ku joogaa waa 2005 waa 17 sano waxaa la sameeyey ururka talwadaag la yidhaha ee imaka baaba'ay inan baa markaa lagu sameeyey ana qofkii labaad baan ahaa sidiiba ururka ku shaqaynaya dhowr iyo 10 sano imakana dee commissionka iyaga ayaa gacanta nagu haya takoor waanu qabnaa anigu takoor badan horta la kulmay bulshadayada inta la nool xanuunka dalka gobolada hargeysa meel walba joogta takoor baa haysata takoorkaasoo marka qofka xanuunka lagu sheegay la yidhaa bulshadaydu waxay u badan tahay karoole dadkani hoy ma haystaan guri inaad ka guurtood guri kale dee hoyba ma haystaan dadkani badi majoritin mabale maxay tahay hanti majoritinka hantidani way yaryihiin hadday leeyihiin dadkaasi ma muuqdaan waa dad wax haysta waa dadaan dibadda usoo bixin dadkan hadlaya ee commissionku gacanta ku haya waa dan yar waa dad daciifa waa dadaan waxba heli kara
dadkaas waxaa ku jira dad waalan oo gidaarada seexda waxaa ku jira dad dhismaarala oo aqal la isku xidha anigu waxaan bixiyaa counselis hay'adda waxaan la shaqayn jiray UNICEF dabeeto waxaan bixiyaa wacyigelin baa bixin jiray marka lacagtii yarada marka loo gasteen qolada golaha fanka dib loo noqotay marka dhow waxaan ahay 45 qof gobolada ilaa Salil Boorama Burco Wajaale saaxil intaba waan ka shaqayn jiray marka qolada sorta golaha fanka la yar laaftay ma kama shaqayno ilaa 4 sanadood laakiin anigu iyo hablo kale ila midaba dhakhtarkeen isbitaalka guud counselska qaybteeda waan ka bixinaa afka laga helo ee dawada diida telephone number beli waan qaracnaa waan u yeernaa waan la kulanaa dhibaato badan baa naga timaada anagu xanuunkii la nool ay hadana dhibaato noo jaada qaar ba aniga laftigeyga qaar baa noola soo baxay midiyo weli adiga aba nafaafinayba anigu hadii jeer loon hadlaa waxay weeyaan caan baa tahay adigu TV-yada ku jirta marka nabadgeli kama hadhay waan daba socdaa walaalkay baan tahay walaashay baa tahay intaas oo sanad la noola iska qaado tasbaxaga salaadaada tuko malcamadaada iska dhigo ilaahay aamin intaas aan daba socdaa way waa ku soo noqon doonaa mawduuca waxaynu geli doonaa takoorka ay la kulmaan dadka la nool xanuunkan waqtiyada ay shaqada u doontaan goobaha private-ka iyo goobaha kale muuqaal ayaan halkan ka shidi doonaa mar kale iyagoo ka sheekeynaya dadka la nool xanuunku culayska ay wajahaan waqtiyada ay shaqada ay doonanayaan muuqaalka ayaynu daawan doonaa kadib ayaynu isku soo noqon doonaa dhibtii weyneed anoo meherad haysta ayaa igu kaceen dadkii hareeraha igoo dhan masaajid baa la tegay maalintii dambena waxaa la yidhi qoftan aan igu dhex jirto dadka aafeynaysa wii yimi sheekhiyo laalaabay igu yidhi alaabtaada kahor mina subaxa salaad hore sidii baan ku laalaabtay taasay hetay igu darnay dee shaqadii yaa ku ogol dadkan lagaa ciidayna ama xoog lahaw ama daciif aha oo mar haddaanad shaqaysan karahayn 2 meheradood baa layga baabiyey waan qanci waayay tii saddexaad oo u dambeysay imika layga baabiyey xitaa marka qofka imika shaqo uu dawladda u doonto waraaqa caafimaad la kale baa la odhanaya caafimaadkii haddii HIV laga helo lama siinayo shaqadii waa la eriya shaqo ma lama haya la odhanaya waa dawladdii ummaddan ka mas-uulka ahayd commissionka imika u aasaasan xukuumadda HIV-ga madaxweynaha guddoomiyaha isagana waxaan ku codsanaynaa inay sameeyaan xeerkii qaban lahaa dadkan baarlamaanka horgeeyaan ee dadkan xuquuqdooda soo saari lahaa minka wadanadan Uganda oo kale qofku iska da wax kale uu sameeyo uu yiraahdo qofkaas xanuunkaas oo 6 bilood xadhiga la xidho marka istigmadu way yaraanaysaa marka dadkii dawladda ay tallaabo ka qaado nololmaadkayga ma helo waqtan dee takoor naga dhacayo shaqadii oo kale ma shaqaysan karayno marka madaxweynahayaga waxaan baaq dheer iyo hay'adaha ay qosayso dadkan HIV-ga la qabaa waxaan leeyahay madaxweyne dadkaagii baan nahay marka waxaan dawladda ka codsanaynaa inay dadka hooyooyinka aan dar yeesho shaqooyinkooda iyo dadka kale ee muwaadiniinta ay ka mid yihiin hadduu xanuunsanayo iyo haddii kaleba dawladda xukunto mas-uulka boqolkiiba 95 dastuurkeena qof walba xuquuqdiisa siinaya ka shaqaalaha ka aan shaqaalayn ka xanuunsanaya qofkuna markuu xanuunsanayo dawaba ka sii xag jira qofka caafimaadka oo in si gaara qofka loo ilaaliyo oo ubadkoodii loo ilaaliyo hooyo waxaad arkaysaa carruurtii iyadoo negative iskuulkii laga soo riyo la odhanayo hooyada baa bugsa ama xanuunkaasi ku dhacay shaarku makadaasay nagu socota haddadaasay nagu socota ilaahay unbaa dee noqoodiya waan iska nimco badanay wallaahi dhibaatadeedu ma yara dee waxay haystaan qof xanuunsanaya waalanoo xuskaana waan haystaa waxba la waayaan garanay anigii haddaan isidhaa u shaqee waatan meel walba takoorka iga haysto ilaahun baanu dee hoos joogna waxaan codsanayaa madaxweynaha waxaan ka codsanaya inuu hoos noo eego oo dad samada dhagxaano laga soo daadiyey ma nihiin dad muwaadiniin baan nahay oo hoos noo eego xuquuqdeeda hoos loo eego oo lana caawiyo dee hoos lanoo eego hooyooyin baan nahay dhibaataysan carruura wada haysto waxbarashadii looga soo eriyayo oo biyihii loo shubay oo guryihii laga kareynay marka hoos in lanoo eego ayaan codsanay haysta marka la xanuunkaas uu qabo in meheradii laga yaaco oo meheradii qofka ka xidhmo
shaqooyinka dowladda oo kale amba shaqooyinka ganacsiga ah ee shacbiga in loo diido dadkii oo la yidhaahdo qofkaas xanuunkaas u qaba dadkeenuna waxa weeye dhibaatada hayna haysto waxa weeye xanuunkan sida lagu kala qaadanay fahamsanayn xanuunkan waxa weeye qofna ma soo iibsan waxa lagu kala qaado waa galmada iyo dhiigga qofku ku gaadha biyaha oo kale layma shubo kiroolaan hayo 4 cisho guri baa layga saara oo shiidku noo dheeri marka waxaan leeyahay xuquuqdayda hoos loo eego takoorkana hala naga daayo intaasi haddaynu daawadayaal kaga soo noqono muuqaalkaasi kooban weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dood abuur oo caawa ku soo qaadan doono faquuqa ay la kulmaan dadka la nool xanuunku ama xanuunka HIV/AIDS marka ay booqdaan goobaha ay shaqada ka rabaan agaasima soo dhow sidee meesha looga saari karaa dadkii maadaamuna ay sheegayaan inaanay haysan cid u shaqaysa iyagiina marka ay tagaan goobihii ay shaqada ka doonteen ay dhibaato noocana la kulmayaan maxaa xal ku noqonaya bismillahi rahmaani rahiim horta dee horta waa mushkilad taagan way oo xaqiiqo badanina weli ay duugan tahay way u baahan in laga salgaaro oo xaqiiqada la ogaado aniga horta dee dhinaca horta dhakhtar baanka oo waxaan ka ogaa ilaa bilowgiisii waxbaan kala socday way iminkana mas-uulkii yaan wahoo dee hay-addii balagaasima kaanu joogaa muddo kooban inkastoo hadda iyo markii hore aan kala duwanahay oo wax badan igu soo baxeen markaan xafiiska imiday horta arrintaa cabashada waan maqlay horta si cabashaan u maqlay practical maa cabasho dadka la nool ay igu yimaadeen xafiiska in ka badani ay ileeyihiin mataqaanaa marka shaqooyinkii waa lanoo diidaa qolo kale ay leeyihiin waa shaqaalaan nahoo markaan anagoo shaqaalaa soo baara yaa la yidhaha xagga shaqaalaha marka lanoo diro shaybaadhkii ee ay xanuunada cayn HIV ka mid yihiin nagu soo baxaan qofkaas shaqadii waa laga eriyaya marka la ogaado in marka dee dad wadankii oo dhan iyo wasaaradii oo dhan waruma haye hay-adda shaqaalaha ayay markaa iyagu yidhahdeen hay-adda shaqaalahana hawbaarista mas-uulka oo loo tagaa saasaa naga saar marka waxay iga dhigeen in hay-adda shaqaaluhu ka saarayso shaqaalnimada haddii positive ay noqoto waan socday san xaqiiqada u raadaysan markii hore idiin sheegay hay-addii shaqaalaha aanu tegay madaxdii hay-adda shaqaalaha waxaa kaliyo problemkaasaa jiro dadkaasi nugu leeya caynkaasa maxay yidhahdeen waanu arrinkaas waxay u yidhahdeen ma arrinkaa horta shaqa anagu waan ka saarnaay ma jirto sida caadiga dadka dee shaqaalaha o dhan ba loo jeegarayn ba shaqaalahay ka mid yihiin oo saa guud baa loo jeegaraynaya iyaga ayaa mataqaana markaa dee goobihii ka dhacayay anaguna cidna uma sheegay markaan waan gudbinaa caafimaadkooga dabeedna gooba wixii ka dhacay moogin laakiin dee anagu horta waxaan ka saarnaa ma jiro laakiin mid baan kaa ballan qaadaynaayoo dadku markay sidaa sameynay hadday kusaa kugu yimaadaan iyaga aad u sheegtaan oo yidhahdaan caafimaad baa naga qaada dadka caynkaa aad noo keentaan magacdooda dee si baan u xalilaynaa oo ka duwan sida dadka kale arrintaasi waxay u baahan tahay dee in laisla fahmo waayo ma ogolo dadkii magacdoodii inay cid kala hasho ta ugu daran horta waa taa inay magacdoodii cid ogaato markaa magacoodii ma gudbin kartid uma odhan kartid hebel iyo hebel iyo heblaayo hawsha dadkaasay ku noogu jiraan hala ilaaliyo taas horta waa arrin adagoo dee aan iyaga laftooda markaan dib aan suuragal noqonaynin in magacdii la gudbiyo arrin sidaas guud mooyaane de goobihii markaa wax ka dhacay markaa stil mahubna waxay u baahan tahay horta inaan si fiican aan u darisna u baahan tahay mushkiladda ugu badanna waxa weeye discrimination maraan ka hadlayna takoorka ka bulshada ka imanaya waxa ka badan ka qofka naftiisa ka imanaya hadday iyagu dadkan ay fahmaan oo yihiin dad iyagu xuquuqdooda u dooda mar walbo banaanka cidina wax walba derbiga u jabi lahaa imika waxay inoo sheegtay intan marka dadka kun iyo waxbaa qaata 2,000 meelaasa yaa kolay qolada fiistiyada ayaa iga xoogaarsan ayaa qaatay dawooyinka dad badan inta ka qaadata inta aan qaadanee positiveka ka badan dadkaasi intooda badan waa dadka ladan markaa dadka ladani kama qaataan xafweynaheenna waxay ka qaataan wadamada jaarka way tagaan jabuuti ka qaataan etoobiya ka qaataan meelaha kale soomaalida kale ka qaataan marka waxay diidayaan meelaha goobeyn lagu garanayay inay yimaadaan waxaa kaloo aada iyo aada loo fududeeyey xagga isdaaweynta wasaaradda caafimaadka u qaabilsan kaarka halkan qofkan ka haysto haddaad maanta ka qaadato harka geysa haddaad berri boogto waa lagu siinaya haddaad jabuuti waa lagu siinaya cross border baa jira
marka waxaan oo dhan waa aad baa loo fuudeeyo dib qaasho ay fuudahay marka dadka intay naga maqan intooda badan ma macnaheedu dawada ma qaato laakiin intooda badani marka qofkii hadduu xanuunkii qabo dadka horta oo uu safro kaasoo qaadanaya wadanka ka qaadanaya oo fuudahay marka cidda diidaysa in dadku arkaana meelo kale oo laga garanaynin ay iska rejistrana ka qaataan Amira soo dhawow ururada bulshada rayidka aad ka socotaa dadka sideed aad ula shaqaysaan markay dad saas oo kale oo shaqooyinkoodii iyo arrimahaasi loo diiday ay idiin imaadaan horta dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya markaanu nahay ka emotional duwan yihiin dadyogan kale waxaa laga yaabaa barkiinada caadi u aragtay qof la nool xanuunkii oo baahan wax kaa codsanaya ila dhaqaalo meel kasoo gala aan haysan way kala yara dareen duwan tahay waxaa jira anigu practically waxaan u arkay dad badan oo xarumaha dowladda private-ka halka iga dhigay oo private-ku nin shakhsiyaas kale mana baahna qof xanuun qaba dowlad publicgii xarumihii publicu qofkii automatically shaqadii haddii bayrolka ku jiray waxaa gabagaba gala oo inta laga saaray waqti bay marka qofka dawladda uu shaqeeyo waa qofka dawladda uu shaqeeyo hay'adda shaqaale ka diiwaan gashan marka xanuunka laga helo culays baa ku imanaya hadduu bayrolka ku jiray weeyaan haddii aanu ku jirin automatically shaqada uu kaga baxay marka laba qof bay u qaybsamaan qof waa qof marka lagu raa xanuunkiis ka soo baadh marka koowaad shaqada soo galayaba baxsada oo xanuunkiis ka baadhay qofna maaha 100% dadkan horta maaha dad gabigooduba wada baqanaya dadka xanuunka la nool dad dhiiran bay ku dhex jiraan qofka soo dhiirada ee xanuunkiis ka soo baadha ma helayo inuu shaqadii ku gali karo ma jirto automatically horta ma dhacdaan intaan arkay waxa laga yaabaa in hay'adda iyadoo iska duweysa eedaha inay ku gabato qof ma practically ma jiro qof bal infected ah oo hay'adda shaqaale ka duwan gashan in la soo helay anigu ma sheegi karo soo marka qofkan wuxuu u baahan yahay dhaqaale ku noolaado waan soo sheegnay qofkii xanuunka la noolaa familigiisa takoorey bulshadii baa takooreysa qofkan si uu si noola at least hadduu dhaqaale yar helo waxa laga yaabaa inuu maskaxiyan wax iska bedeli lahayd qofka noloshiisa inuu access u heli lahaa noloshiisa inuu sii wato taasna ma heli commissionku hortay eedo badan noo soo jeediyay ma doonaya laakiin dhaqdhaqaaq badan uu sameeyay laakiin xaggii pointkii loogu talagalay mu abaarin waxyaabaha kalifaya waxay ka mid ah in chairman anigu madaxweynaha looga dhigay madaxweynuhu ciz iyo sharaf uu nagalay laakiin madaxweynuhu dana kale ku mashquulsan focus kuma noqon karo dadkan in dantooda maxaa hayday waxyaabaha ay u baahan yihiin la darso dadkan maxaa support u baahan yihiin dawladdu waxay u sameyn kartaa miisaaniyad gooniya dadka HIV-ga la nool oo raashin looga dhigi karo iskuulka carruurta lagaga bixin karo noloshooda ay kusii wadan karaan si caadi laakiin taasi ma dhacdo agaasimuhuna uu joogaa uu ka markhaati kacaya ila dhaqaalo dadka ka soo gala ma jiro dawladda business ba dadka loo sameyn karaa ganacsi bay loo sameyn karaa dadka nolol maalmoodkooda ay ka soo saartaan taasina iyaduna ma dhacdo marka xeerkii ugu dambeyn horta xeerkii isaga waa la qoray laakiin cid hadal haysa ma aragno xeerku qoormo la publish garay goormo xeerku la ansixin karay waa marka dad u dhaqdhaqaaqay la arko xeerku xoog buu fududiyaa haddii waxa la yiraahdaa 5,000 qof maybe haddii ay fawd gareeyaan in xeerkan la ansixin karayo taana dadaalkeedii ma hayno oo dadka ka mas'uul commissionka iyo dadka kale ka mas'uulkii ma hayaan waxyaabahaas oo kale waxyaabaha saameynta kula dadyogan la nool xanuunka wacyigelintiina marka hore aan soo sheegay marka anigu saddexda qodob baan kusoo gabagabeyn dadkan in ila dhaqaale loo sameeyo in dadkan chairmanka ka ah commissionka in qof chairmanka iyo qof mashquulsan automatically meesha ma baahna wuxuu baahan qof focus ah qof dareemaya maadaama madaxweyne chairman yahay qof kale oo shaqadii haleelaya exactly ayaa ku habboon aywa intaasaan kusoo gabagabeynay aad baad mahadsantahay Amira waxaan u imanayaa Mustafa Dubad gudoomiyaha aan ilaahday guddiga xuquuqul insaanka qaranka dadkii way ku dhibayn inay shaqo ay doontaan haddii ay doontaan culayskaas ay soo wajahaya waxa kale oo jira in qofkii oo shaqada ku jiray uu xataa shaqadiisa ku waayi karo bal ka war xuquuqul insaan ahaan maxay idin la muuqatay horta marka hore discriminationka marka laga hadlayo xuquuqa wax loo qaybiyaa laba qaybood direct discrimination iyo indirect discrimination baa direct discrimination xuquuqa tooska ah iyo xuquuqan tooska ah xuquuqa tooska ah waxa weeye qofka marka imika kuwan aynu ka sheekeynayno takoorka noocaas uu ku dhaco oo qofkii gurigii laga saaro
noloshii kale laga eriyo xaaladdu ku adkaato shaqadii laga eriyo toos buu indirectiguna waxa weeye marka qawaaniinta iyo xeerarka waddanka u yaala ay dadkan ka saarayaan fursadaha ka saarayaan su'aalahan shaqadii waxa loo shaqadan dadka noocaas ma soo xiraysan karaan ay la oranayo oo requirement bay ka mid tahay qodobada meesha ku yaala ka mid marka taasoo kale waa indirect qofkii waa toos waa indirect waa laga saaray boolosiyadii baa xidhaya dadkii marka inaga qawaaniinteenu qaabka u diyaarsan yihiin iminka xeerka shaqaalaha oo kaleeto xeer number 31 2020 xeerkaas marka uu 21 buu soo baxay xeerkaasi qodobkiisa 10aad wuxuu ka hadlayaa sinaanta muwaadiniintu u leeyihiin fursadaha shaqada meel kuma arag dastuurka qodobka 8aad baa ka hadlaya sinaanta muwaadiniintu leeyihiin qodobka 19aad baa ka hadlaya meel kuma arag meel dadka shaqo lagaga saarayo meel ay ku jirto ma jirto oo qawaanin ahaan intaynu meel ku qoranay oo dadka noocaas ah xanuunka la nooli ma shaqeyn karaan meel kuma taalo laakiin waxa dhaca sax indirectiga dhaca indirect waxa weeye marka dadkii goobihi shaqada ay galaan ayaa siyaabo kale dadkii lagu dhaga hadlayaa waa la isu sheegayaa waxyaalaha qofka uu kaga bixi karo goobta shaqada oo ku waayay karo shaqada ayaa dhacaya marka qaab noocaas horta ay dadkani ay shaqada ku waayeen waxa jira goobaha ganacsiga kala timid ganacsi hadduu qofku abuurto sida inaad tukaaleyso karto ganacsiga marka uu qofku abuurto waa markay ugu daran tahay cid wax kama iibsato iminka qofku marka shaqada ku jiro wuu yara dhuuman karaa moogta oo iminka goob furto culays badan baa ku imaanaya marka dadka tan la oral society iminka waxyaalaha kiisaska xafiiskiga soo gala waxa ka mid ah dadku goobaha ay degan yihiin goobaha ay degan marka iminka uu xaafadda magaalada ugu shaqeyso qof ku nool yahay hadduu ka guuro koonaha kala tago Britain la soo gaanaya cid soo gaatan lama garanayo markaas marka goobtii la tago ay qofkii lagu fuqaya gurigii baa laga saaraya iminka waxyaalaha ku dhaca ka mid ah dadkan inantu noo sheegtay hantiilayaal maaha dhulka ay degan yihiin waa kiro markii xataa haddii waxyaalaha jira bir dhaweydkiisa aan la xidhinay ciidanka la xidhnay qaabaan u maareynay waa jirto ahayd in intii ki gabadh baa noo soo dacwootay kiisku noo timi xirinayo fuquuq waa lagu hayaa caagii baa laga raray marka caagii waan saldhigii baan la hadlay amar baan sinaa ku niride dadka ka celi yani inta la dhibaatay oo qaab noocaas aan u xalin marka maxaa la sameeyay intii dhinaca laga soo wareegay ayaa ninkii dhulka la halootigay oo li naga raba gabadh reerbo waa indirectigi moogta qofkii gacanta ma laga dilay moogta marka qofkii waa waxyaalo waxa jira siyaabo kala duwan ayaa qofkii loo saameynaya xataa direct hadaan loo dilin oo qofkii aan xuquuq toos lagu sameyn oo inagu aan xeerarkeenu xuquuqin oo aan maxaan ku raday shaqadii la xuquuqin ka had shaqada qof markuu shaqeynayo markuu shaqada ku jiro oo biology yahay lagama saari karo hay'addu kuma saari karto kuma digdigi karto laakiin maxaa ku dhaca goobta dhexdeeda qofkii laga fuqoya wasaaradii ku kalifisa markaa inuu iskaga tugisay markaa uu ka cararo xataa hadduu bedel qaato tiiba loo sheegay u tagayo marka saasoo kale qofkii ku waayay shaqada laakiin meel intii dhagta la soo qabto la yiraahdo adu waad xanuunkaas aad leedahay ka bax ma jirto wali goob shaqo aad u doonatay oo culays oo ka soo fuulay ma noo sheegi kartaa haddaan goobtii sheegin laakiin dhibaatooyinkii waqtigaasi kugu dhacay meel la shaqo ma doono hadana meel baa laga soo reebin ba sheegay laakiin anigu ma waxaan ahay afayeenka dadka u hadla dadka ugu dhiiran baanay way dabtaan agaasimahayaga wuu casabiyay agaasimahayaga waa noo imi waxaan ku dhigay intumanka ciyaala baan leeyahay hablo u badan waliba dhulna malihi kiraan ku jira kiradana kama sheekeyn karo caawa dhan sida sheekay waagaygu bariyay takorka iga soo maray hadda guri baan ka guuray subaxan saaka soo hadnahay guri baan ka guuray koobi tambilad baan ku jiray waa lay takoray hablaha waxba ma dhigtaan waxbarashada iskuulkan geeyaba waa laga soo riyaa hooyada waxa nolona habla dhismaral iyagii baaba iyagoo caafimaad qaba dhismaral kiimo iyagoo mar walba ooyay markay soo galaan waxaan ku iri waxba habarana guriga jooga tiifigi baan u dhigay mid walba moobil baan u iibiyey waan mashquuliyey guriga kama soo baxan albaabkeeda noo xidhan waana la soo ogaanayaa waxaan siinay inankaas runtiisa wax ku soo ogaaday garanaysa anigu magaalada saan ugu cararayay magaalada halka u dambaysa oon imika magacaabi karan ayaan degan haddaan magacaabada runtiisa igu soo yaacay
waxaan kugu idhi wax soo ogaada ma garanaysa saaka habeen hore ii timi waxay gu tihi inankayga baa ku carabsanaye iiga gur waayo ku idhi marxabe markaan guri helo inkaa guri gurigii baa ilaahay markiibay siiyey waan guri ninkii shuruud baan la gala horta maayirkan tago waxaan kula nadar dhul baan u baahanay dadkayguna dhul buu wada baahiyey horta anuu hablaan haystaa dhulisay baan ku dabeete waa iibi maayirku ima xumayn waxay guri waayey marka caadi gantii baan kaa siinaya danta guud marka imaka adigu ay soo baxdo waay dabeeto waxaan ku idhi walaal gabadhi inankii baan u tegay waxaan ku idhi gurigaa markaad iga karayso shuruud baan la galay waxaan ku idhi 2 sano inta dawladda aan wax ka helayo dhul ha iga saaran haddii aad iga saarayso banaankasan alaabta ku guranayaa telefishinadaan u yeedhanayaa dawladdeedana soo bandhigaya waay dabeete ilkaamaba saaraya inanka u yaxyaxay weligay waa kiroole weligay kaa saari maayo kiradana waa layga bixiyaayo dad ilaahay ii diray oo madax oo sharaf leh ayaga bixiya oo ogayagaasi maxyagu dadkayaga barhkoodna waa runtiisii waxaa saaran culays agaasimaa waa ka bixiya jeebkiisu ka bixiya isagoon madaxweyne iyaguna u dhiibin cid kalena u dhiibin isagaa jeebkiisa ka bixiya takoorku inaad wuu jira waanu nagu badeeyey ganacsi ma samaysan karno waa runtiisa anigaygana igu dhacday ganacsi baan samaystay wasaaradda arrimaha bulshada ayaa $500 siisa ganacsigii baan sameeyey dukaan yar baan furay weliba maan dhigan cunto qoyan waxaan dhigay shid iyo alaab wallaahi baan laysoo gelin baan ku alaabtii sidan baska ula soo raacayay magaaladan ka yimid iyo xafiiskayga gudihiisaaba iga qaatay sidii baan ku joojiyey waxba aan qabtaa ma jirto waayo de shiidkii la xidhanay marka laga hajsan waayo maxaa laga hajsanayaa kale waaye waan joojiyey awlaadan imaka hayo ilaahay barakeeye waa 5 4 baa hablaa inan baa ku jira 10 baan dhalay 6 kale oo iga maqan 6daasi dadkoodii baa haysto waxbay barteen anigu malihi family macaan oo dadkayga mar hore aakhira tegin bahay keligay weeye familygii guud way itakoorey marka maalintii layga helo haddaan caawa dhimanayo uma tago biyaha cadka ma doonto soonahooda isma taago bini aadanka kalaba labada ii dhaanta oo haddaan la caawa aragtayga qatan iisoo karnayba waay dadweynaha ayaan markan siinayaa qofkii tala soo jeedinaya si dadka la nool xanuunku ay u helaan shaqada fikir ahaan midada kale wax xanuunkan wacyigelin lama sameeyo iyaga markii xanuunkii COVID-19ka dadka wala wacyigelin jiray mobilada soo dhici jirtay haddii xanuunka la wacyigelinayo dadka waxba iska bedeli lahaayeen dadka qofkii qabay ama qofkii la bukay waxa iska bedeli lahaa waxa lagu ilaalin karo muhiimadda horta waxa weeyaan xeerarka wixii xuquuqdooda ilaalinayay dadkana xuquuqdoodii ilaalinayay labadii dhanba xuquuqihii ilaalinayay horta in la helo muhiima baarlamaanku ka soo saaro walow de imga uu la sameeyey sugaa ismu sheegay aanu laakiin wali ahayn sharci shaqeynayo oo ay saxeexeen baarlamaankii ansixiyeen isla markaana ay saxeexay madaxweynuhu aanu ahayn kaa marka la helo xuquuqda wax ilaalinaya xuquuqdii qofkan iyo xuquuqda bulshada labada dhinacba ayaa qofkii haddii uu arko takoor isagoo oo ka cararin meeshii ayuu la tiigsan karaa de xeerkii laakiin hadda hadduu hataa dareemo intaanu ka cararin wax uu la tiigsado ma jirto markaan xagga shaqada ka hadlayno qof walba maanta wuxuu u baahan yahay nolol maalmeed ku noolaado maxay ahayd qofku nolol maalmeedku ku noolaanaya haddaanu helin dee wadogti adigoon maanta waxba xanuun qabin aanu waxna dee isku ogeyn haddaad nolol maalmeedkaada heli wado noloshaadu saytay wadogti qof stress ku furan yahay xanuunna haysto markuu nolol maalmeedkiisi waayay dee way adagtay dadka ha loo xidha intaa dadka waxaa intaa ha loo xidho laakiin maanta haddaynu idhaahno shaqadii maxay ahayday dee gruubkii ama meeshii hawshaas ka jirtaba hal qofoo maxay ahayday xanuunkaas lala nooli ha ka mid noqdo dee dhiirigelin iyo shaqa abuur bay noqonaysaa oo maxay ahayday meel iyo il dhaqaale dadkii kasoo geliyay noqonaysaa laakiin haddii maxay ahayday layska wada dhowro oo layska wada ilaaliyo oo dadkii shaqada bixinaya ay iska ilaaliyaan qofkii dee waxay noqonaysaa wax aan soconayn
waxa ugu muhiimsan ee aynu dadkan ku caawin karnaa ama aynu bulshadeena ilaa wadada walaalaheena inala noole ay ku soo dhex geli karaan shaqana ku heli karaan waa in horta wacyigelin loo sameeyo bulshada qayb boolay tahayba wacyigelin loo sameeyo yacni iminka imaamadu waxay ka sheekaysay meelaheenna aynu ku tuumayna aqoonta ee dhakhtarku dhibaatadu ku hayo iyagoo aqoontii leh oo jaamacadii ka soo baxay oo dhakhaatiirtii joogto in hooyo umulaysa laysku turtuuro maxaad malanaysaa markaa bulshada aan waxanba ogeyn een anugu ka mid ahay seebaan shaqo u siin karaa seebaan u soo dhawaysan karaa marka aniga waxay ila muuqataa in dadkan waxaa carabka lagu dhuftay inuu madaxweynuhu u yahay guddoomiye agaasimuunuu cusub yahay miisaaniyadda dowladdana bajadu ku jiro dadka la noolna aad tiradiisa sheegteen intuu yahay 3,000 iyo intaas dadka dawada waddankeena lagu nool ay tahay wax badan baa loo qaban karaa waynu soo dhaweyn karnaa shaqana waa loo abuuri karaa fikir ahaan waxaan qabaa in haddii xeer keliyaata la soo saaro aanu xeer keliyaata waxba ka bedeli karayn waayo imikaanu jaamacad baan kasoo baxayba wuxuu yahay HVIDs ma aqaan sida la sheegayna qofkaan arko discrimination baan ku sameynaya waayo dee wax haba yaraatan ka garanaya ma jiro waxaan anu odhan lahaa awarenesses badan aynu sameyno waata kale caqabadana halkay kasoo bilaabmatay ayuunba laga daweyn karaa waa xagga sare lagama daweyn karaayo marka waxaan odhan lahaa yani rules badan aynu ka sameyno waxbarashadeennana aynu ilaa basiga ku darno si dadkii dee ay u garan karaan hadhow ula dhaqmi karaan qofkiina intaasaan odhan lahaanu thank you aad baa mahadsan tahay intaas haddaynu kaga soo noqono daawadayaal weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dood abuur markan waxaan soo dhaweynayaa doctor Sharmaarke Cabdi Cali doctore goobihii caafimaadka dadkii waxay sheegayaan inay tahay meelaha ugu culayska badan qofkii markuu uu tago goobtii wax badan oo aanu filayn ayuu ku arkaya maxaa keenay baad is leedahay horta ugu horeyn waxay la dul istaagi lahaa stigma and discrimination marka kelmadan stigma si horta u yara fahno dadkeena daawanayaan u fahmaan waa qofkii oo la faquuqo amba waxaan raali ka ahayn oo kasta hadday noqonayso hadal hadday noqonayso male stigmadu noocyo badan laakiin waxay ka bilaabantaa stigma of mind maskaxiyan maxaa qalbigeena ku jira sida imika intaasi sheegtay dhammaanteen inteena TB iyo inta HIV ku shaqeysa mooyaane dad iyagu kale xitaa shaqaalaha caafimaadka laftooda markuu qof yimaado ama uu iska baarayo amba shay baar u sameeyo amba positive noqdo maskaxdiisa waxa soo gelaysa in qofkaas sameeyay extramarital sex ama uu galma xaaran sameeyo qof xun yahay baa soo gelaysa xaqiiqda marka laga hadlayo ta in doonayna ka takhalusnaana wata weeyaan dadka maskaxdooda ma aha in kaliya taa wasaqda maanta gacanta ka ma dirty our minds alashan qurunkan iyo xumaanta maskaxeena ku jiraan ma aha marka gacmo wixii kaas goolaas ka meedhi kartaa mawti laakiin maskaxdan si looga saaro waxay u baahan tahay qorshe ka badan kan maanta halkan u fadhino oo lagu soo celceliyo oo aad u balaaran bay u baahan tahay anagu waxaan runtii dadkan xaqiiqada dadka u yimaadaan waa anaga iyagoo jilaysan ba noo yimaadaan anaga dhakhaatiirta ka shaqeysaya jefi gaar ahaan iyagoo jilaysan ba noo yimaadaan iyagoo cabanay noo yimaadaan iyagoo xanuunsan noo yimaadaan iyagoo jilicsan bay noo yimaadaan iyagoo dhibaatadaas ku dhacdayna runtii way noo yimaadaan marka ama ha ahaato goobaha caafimaadka dhibtay kala kulmayaan amba ha ahaato dhibaatada bulshada kala kulmayaan labaduba wuxuuba ku yimaadaan lack of information stigma oo dhan waxay dabada ku haysaa waa xog la-aan kuma shaqaalaha caafimaadka stigmada sameynaya xog baan haynin bulshadana xog baan hayn tusaalahaan xogtii haddaan sii macneeyo waxaanay garanahayn HIV-ga waxay u haystaan dadka qaar bulshada badankooda waxay haystaan in la dhimanayo HIV qofka hadduu ku dhaco dadka qaar waxaanay garanahayn shaqaalaha caafimaadka ku jirta transmissionka sidoo xanuunkani ku gudbayo macnaha hadday og yihiin inaanu waxaa jira wax loo yaqaano tusaale haddaan soo qaato dalkana la jaarka Ethiopia kaleeto xitaa qofka lama taskarayo haddii xitaa qalin loo sameynayo lama taskarayo waayo maxaa soo kordhaya haddii qofka aad taskariso waxba soo kordhayaan marka horeba qofka soo shaqaala caafimaad oo shaqeynaya waxaa jira wax loo yaqaano universal precautions if it is sweat or not yours don't touch it haddii qoyaan dhiig dheecaan wax aad la kulanto oon kaagii ahayn waxaas
dabcan waa inaad golofskaaga gashataa si nidaamsaad uga shaqaysataa haddaad 2 golofo 3 golofos gashatay haddaad mid gashato waa same risk marka dhammaan waxaasna waxay dabada ku hayaan xog la'aan shaqaalaha caafimaadka imika 2022 istiraatiijiyada la bilaabo waxaa kamid in dib loo wacyigeliyay shaqaalaha caafimaadka inagoo kaliya tan maaha adduunka oo dhan marka laga hadlayo HIV-ga xitaa dalalka horumaray ee Yurub ka mid tahay cidda istigmada sameysay ugu badan oo shaqaalaha caafimaadka waayo beeshinkan cidda la tacaluqa waa iyaga dadka halka jooga ma garanayaan beeshinkii laakiin cidda u imanaya beeshinka waa shaqaalaha caafimaadka marka waxaynu u baahannahay wacyigelin ka bilaabanta shaqaalaha caafimaadka ku dhamaatay bulshada iyo guri wal iyo cid walba ku dhamaata marka anigu kama hadlayo anigu waxaan dareemayaa runtii marka day halkan la fadhiyo dhibaato idinkood dhan dareemahayn wacyigelin baa loo baahan yahay wacyigelin baa loo baahan yahay wacyigelin baa loo baahan yahay anigu dadka waan damqadaa dadka waan dareennaa dadka waan la kulanaa dadka waan aragnaa shayga labaad ee lagu soo cirib tari karayo waxaan oo dhan waxa weeyaan in xeer laga sameeyo xeerku wuu jiraa xeerkaagaasi muu sheegayaa anaguna waan dabadan ka rixnaa anagu waanu gaarnay ilaa hay'adda shaqaalaha laakiin xeerkaasi wuxuu u baahan yahay in la publish gareeyo oo la xaqiijiyo oo baarlamaanku baas gareeyo dadna xeer dhaqan galoo shaqeynaya noqdo way aad baad mahadsan tahay doctor Sharmarke hadda waxaan kusoo dhaweynayaa agaasimaha hay'adda aan raadiyay commissionka xakamaynta HIV wacyigelin intee lag baad u samaysaan goobaha caafimaadka ama aad ka samaysaan haddaan halkaa ku noqdo horta dee wax lama qaban ma jirto wax badan horta waa la qabtay ilaa dee markii lasoo aasaasay hawshan ilaa imika wuxuun baa la qabanay ha yaraado wax la qabanaya laakiin wuxuun baa la qabanaya waxaa kugu tusaalaa waxaan xasuustaa oo dhacda aniga anu soo taagnaaya dee anu dhakhtar baanahay weliba obstetrician gynecologist dhakhtar dumar baanahay waxaa aada ugu dhex jira waxaan xasuustaa isbitaalka Boorama anoo Boorama jooga in gabadh la soo dhigay gabadhaasi ay madheertu way maansraade ka soo horeysay dhiig bax badan ku socday waxa lagu dhici waayay gabadha in la taabto waan xasuustaa ilaa imika maskaxeeda way ku jirtaa wacyi badan ma jirin aad looma aqooni early 90s-kii bahayd markii uu ina soo garan waxaan Muqdisho ka soo qaxnay iyadoo markaa uun sheekadu ay bilaabantay ana arday jaamacadda Muqdisho ku jiray waxaan xasuustaa markaa wax register ku jiray isbitaalkii Digfeere National Hospital-ka koob iyo 50 qof waan xasuustaa numberka koob iyo 50 qof baa ku jiray walaashay ku soo arday baa markaa jaamacadda ay isbitaalka waan tagi jirnay markaa xogtii markaa ay bixinayeen aan ka qayb galan joogay koob iyo 50 qof iyo positive hawla hay Soomaaliya oo markaa Muqdisho baa laga jeegaray gobolada cidina ma ogeyn xabad laga ma ogeyn iyadoo waxba loogay ma soo qaxnay markii Ethiopia la galay Ethiopia baalku aad oo mushkilaha halka halka ugu badan in aafadii naga tinbaan iyo Djibouti iyo cirka u galay labadaba waxaan xasuustaa maanta dhakhaatiirtu fikir kama aysan cid kale fikir waan taagnaa waxa lagu dhici waayay in gabadha la taabto waxaan xasuustaa sariirtii baa laga dhulka la dhigay dhiigga loo shubaayay dhiig baa loo soo waray kadiga ku xilaya iska ilaalinaya dhiigiyada ka baxay yaa sibirkii sidaa u socda oo aan dul taaganay anagoo dhakhaatiira marka dhakhaatiirtii markaa joogtay anuu markaa dee waxaan anuu final year ku jira jaamacadda ayaa soo qaxay markaa dee arday baan ahaa dabadeedna dee baragtigaraynayo shaqada ku jiray laakiin dee dhakhaatiirtii markaa joogtay way ku dhici waayeen ha sheekaysa dhiig baa lagu shubay lagu xasuustaa gabadhii oo aan waxba loo samaynin inuu ilaahay ilmihii soo dhaafiyo madheertii ilmihiiba ay soo wada qaadeen dabadeedna sii dhiigan ku joogsaday sidii iyadoo nabad ku baxay waan u taagnaa oo intaa ka dambeysay 15 sanadood baan directorka isbitaalka Boorama halkaysoo wixii u dib ugama dhicin wacyiga dadku qaateen baan ku saxiixay shaqaalaha caafimaadku different maanta iyo maanta u dhaxeeya ma dhicin way dhacdaa meelaha maalin walba waa lagu malay mursooyinku way shaqeeyaan war inta badan lama taskareeyba saareeyay warba looma hayo waa la protection ku badan waa la samaystaa haddii xitaa la ogyahay qofka operation waa loo sameeyaa delivery waa loo sameeyaa marnaba lama joojinayo laakiin wax hoos ka gugujiyay wax yar dhifsaan ma waayaan horta different inta leeg baan ku jirnaa ya isbedelkaas u yimid aan dib u soo noqdo hadda maanta aan soo noqdo maanta horta mid waan ka marakacayaa oo commissionka HIV buu tamar darayay oo hawshan ugu yimid meesha budgetkiisu aad bay horay waxa
hay-adaha waagi hore wadi jiray hay-adihiina ma garanayo waxaweenkaasoo dee dhaqaal xumaa adduunyada ka dhacday iyo coofigii iyo waxbaa iswada yimid horta kolley focuskii uu jeestay xaggan ku jiray marka hawlo badan baa yaabo barta waxoogaa shaqaalaha lacag la siisiin jiray dadka qaarkood badh oo waxa lagu support garan jiray UNICEF baa bixin jirtay sidaan ku maqlay information markaan intaan helay uu joogsaday oo lama bixiyo miisaaniyadda waxa ugu jira raashin baa ugu jira intaan raashin baa ugu jira laakiin support kaloo dadka personal dad gaar loo support garay ma jiro waxaa ii sheegay inay ka bixin jireen dadka qaarkood kirada laga bixin jiray caynkaas la siin jiray isaguna wuxuu socday programyada hay-aduhu bixiyaan baa waxoogaa looga jarjari jiray sida igu information igu sheegaas igu horreeyay laakiin barja toosoo halkaa ugu jiraay ma jiro amiira soo dhowo mar kale ururadii bulshada rayidkaabaad ka socotaa goobihii caafimaadka culays badan baa kaga imanaya dadkii markay tagaan ka urur ahaan ama sidee idinkeedii la muuqataa in xaaladahan oo kale ay looga bixi karo caafimaad marka la leeyahay iyagu number 1 waa dawadooda inay helaan sidaan soo sheegnay dawada 60% ka mid ah dawo ma qaataan maybe in meelaha ka qaataan maybe in yani stress iyo waxyaabo ku furan dartood inta dawada qaadan waa in hadhow toole ay develop gareyn dhintaanba marka qaar nugul baa jira way oo ay tahay qofka bini'aadamku wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado dastuurkeena noo sheegaya human rights international human rights commission noo sheegay hooyooyinka ugu nugul xanuunkan marka la sheegay ama nin iyo nagas qaba labaduba infected ay yihiin laakiin u baahan waxay xaq u leeyihiin inay tarmaan maybe in ma noqon karo 100% ilmaha dhalaan infected oo maxay haday dad badan waxa jira carruur dhalay carruurtooda negative ay yihiin iyagu infected ha ahaadaan so marka hooyadan man arag meelo lagaga hadlo dumarka uurka leh waxa laga 100% yaa 100% mid waa la badbaadin karaa hooyadii ilmaha waxa la kala badbaadin karaa ilmuhu infected noqdo waxyaabahaas oo kale bulshada laguma wacyi geliyo qofkii ma awoodi karo inuu qaliinka galo si maxay haday uu si normal ilmihiisi aan xanuunkii u qaadin oo kale waxyaabahaas oo kalena laguma booriyo dadkii maxay xanuunka qabay in waxyaabahaas oo kale sameyn karaan hooyada iyadoo da'yar baa laga yaabaa infertility ay noqoto ama ay waxba dhali weydo iyadoo ku sababayo xanuunkan immuunkeeda ama difaaca jirkeeda hoos u dhigay iyada laftarkooda waxa jirta anagu markaan arday baan ahay practical ba qaadanin waxaan u kala roori jirnay dadka qofka si aan anagu ugu dhalina at least practical ka ugu sameeyno qofka infected ka ay kor dadka infected ki dhakhtarku way ku badnaayeen hooyooyinka dhalay waxaan lagu oran jiray kaale idinku qabta maadaama meeshii exactly ha dadkii kalena looma ogol anaguna de ama oranayaan waa caawin jiray dadkii waayo aniguba wacyi gelin sax ma haysan waa markiiba foobiyo waxba iska ka abuurmaya aniguna waa waxba sabab ma siin jirnay marka bahda caafimaadku ama caafimaadku guud ahaan sabab mu siinin maxay haday dumarka dadka la nool sidee loo joojin karaa ayaa kula tahay dhibaatooyinka ay kala gurmayaan goobaha caafimaadka goobaha caafimaadka horta waxay ku xidhan tahay dadka ka hawlgala nooca yihiin dadka ka hawlgala hadday yihiin dad u diyaarsan inay bulshadan la macaamilaan wax dhibaato takoora kalama kulmayaan marka taasi waxay u baahan tahay in dadkan tababar dheeraada la siiyo iyaga la dhiso lagu dhiirigeliyo inay sida dadka kale ugu adeegayaan ee ugu adeegaan dadka xanuunka la nool haddii taa lagu guuleysto markaa dadkaasi ay noqdaan dad u diyaarsan oo waxay helayaan adeeg dhammaystiran marka goobaha caafimaadku markaa waa meelaha ugu nugul qofku waa xanuunsanayaayo qofkii dee wax xaalad kale ma hayso xanuunku waa inaad dhakhtar tagsid marka dhakhtar haddaad dee u baahan tahay dhakhtarkiina dad baa kaaga soo horeeya dadkiina marka haddii aanay dadka kusoo dhaweynin waa dhibaatay leedahay marka in dadkaas loo diyaariyaa inay noqdaan dad dadka soo dhaweeya Soomaali marka laga hadlayo waxaan nahay dad marka horeba takoor u samaysan sababtoo ah nin ilaa weyn oranana cawar mid il kala weyn oranana ilka case qabiil baynu isku taageerana laandheeriyo laangaa baynu iskula baxnay asala waaba qof xanuun lagu sheegay qof maanta shahaado caafimaad ilaahay ka siita oo oran kara aniga HIV iguma dhici karo ma jirto HIV na ma aha wax maxay dhahdaye dad u gaara ama maxay dhahdaye qolo u gaara laakiin waa xanuun bulsho oo wuxuu taabanaya caafimaad buu taabanaya dhaqaale uu taabanaya waxbarasho taabanaya maadaama uu yahay arrin bulsho intaanu albaabadeena soo garaacin
waxaa la yidhi beri baa la maahmaaho waxaa la yidhi ree hebel mar bay qabasho lahayn markay qofka qura ahaayeen bay qabasho lahayn iminkaynu qabasho leenahay oo tiro ku haynaa dadkeena intaanu albaab walba garaacin oon ehelkaa ama walaalkaa ama ka kugu xigaa ama gurigiiba intaasoo qof ayna kasoo bixin oo positive inaynu wada jir gacmaha isku qabsano walaa dawlad baan u gaar ahayn walaa commission baan u gaar ahayn walaa dhammaanteen inaynu gacmaha isku qabsano aynu siduu agaasimaha sheegay wuxuu sheegay inay dadku aynu horta marka hore focuska saarno oo mar walba dadku ay dhiirigelin aynu siino oo kii aan hadlaynin ka hadlaya kusoo dheeraado kii qarsoona markuu arko walaalkii sida loo gelayo isha cali ka laadlaada soo ku cibro qaadan maayo marka kii walaalkii sidan loo gelayay sidee buu beri usoo bixi karaa ilaa iyo aynu inagu gudaheena iska soo dhisno oo aynu aamino qofkani inuu nala mid yahay oo aynu aamino hooyadan inay tahay madaxweynaha mustaqbalka ta dhali doonta inaynu maxay dhahdaa aynu gacmaha iska wada qabsano sababtoo ah maadaama oo imika Soomaalidu waxa weeye indha ku garaadle kaliya hal qof baynu iska eegnaa ka yara daciifka ee soo baxa kumanaan baa jira inaan qurux badan baa jira labada bariis kursanaya ma oga caafimaadkooda ma yaqaanayso dabiiciyana uma sameysnin inaynu iska baadhno marka intaynan kan soo shaabaxay ee isa sheegaya ee waliba inaga wax inala doonaya wuu heli karaya inuu isqariyo wuu heli karaya intuu waayihiisa laabta ku haysto inuu wuxuu samaysan karo laakiin kan inoo naxariistay waxaan u arkaa inay inoo naxariistay intaynan waxba yeelin inaynu kuwa kale iska eegno oo aynu kasoo bilowno labada qof ee iskuursanaya ay HIV iska baadhaan oo iskuulada dugsiyada hoose ilaa kuwa dhexe lagu daro maxay dhahdaayay barashada HIV anigu hooyaha ninkayga waan kala tagnay gabadh buu guursaday way kala tageen dib bay iigu noqda xalan wey sama idinkuna dee waxba ma ogidi waxaan aad iyo aad idinku wacdiyaya inaa qofka xanuunka la nool hadduu ardayii ood ogaataan aad soo dhaweysaan lambar 1 oo laydu eeg sidii markii hore caadiga waxa aad ula isticmaashaan oo soo dhaweysaan sidii hore xitaa kasoo dhaweysataan xanuunkanina eeg laguma kala qaado waa galmo lambar 1 waa galmo lambar 2 waa sidii doctorka inoo sheegay waa dhalitaanka inoo sheegtay inantii doctorka waa dhalitaanka dee waa ilaahay baa dee horta wax badbaadiya anigaygana carab negative ayaan dhalay waan ku dhaloonin xanuunka la nool baan guursaday maxay tahay hadda waanu kala tagnee dee 3 iyaale 3 baan dhalay 3 waa negative sidaa markaan wareerka u noqdo xaaladda caafimaadka maadee la xidhiidha ilaahayna wuu ii badbaadiyey dee dhakhaatiirtaan la xidhiidhayan baana dee iyo allaha weyn da'yarta sidaa aan idiin sheegay ayaa maxay tahay sameynaysaan idinkuna is ilaaliya hooyada iyo aabbaha marka xanuunkii laga helo waxaa si fudud inta badan u baaba'a reerkii iyagoo caruur ay markii hore sii joogeen ubadkii oo u baahan daryeel labadii qofna aanay xanuunka wada qabin laakiin mid ka mid a laga helo taasina waxay keentaa burbur qoys oo meeshiiba in caruurtii ay dayacmaan hooyadii saasoo kale ku dhacdo aabbihiina hadduu doono uu meel kale isaguna maro isagoo caafimaad qaba marka arrimahaasoo kale sida looga bixi karo ayay su-aasheena ugu dambeysay ay noqon doontaa balse intaynaan su-aasha aynaan u gelin muuqaal kale ayaan mar kale inoo shidi doonaa dad iyagu dhibaatadaasi ay ku dhacday marka madaxweynaha iyaga waxaan baaq dheer iyo hay-adaha ay qosayso dadkan HIV-ga la qabaa waxaan leeyahay madaxweyne dadkaagii baan nahay meel kale kamaanaa niman awlaadeedan dhalay waa awlaad caafimaad qabta waxaa laga yaabaa inay noqdaan madaxweynaha mustaqbalka soo socda inay noqdaan awlaadeedu madaxweyne noo soo jeeso oo hoos noo eeg oo xaqayaga aanu helno xaqayaga ma helno ta kahor baa nalagu hayaa ma helno xaqayaga aanu xaqayaga helno dadkan waa dadkaagii meel kale kamaanaa niman dhibaato adduun weyn jaarkoo kale markay ku ogaadaan ta kahor bay kugu sameynayaan waxay odhanayaan in ha istaagina ha u tegina ha wareegina waxaan ku mar in lagu shiidaa waa dhici kartaba gurigaaga lagu shiido xitaa qaar hantiiraaba gurigiisa lagu shiidayaaba marka la leeyahay jeef qaba heradihii xitaa qaar baa hadda la doonaan waxba laga iibinayn dhibaato qof ka dibadna waxaa ku dhacaysa dadka qaarkood dhismo hore inuu ku dhaco qofka aan caqli wanaagsan lahayn inuu isagina yidhaahdo adba waa lagu takoro u qariyo intaasoo kanu qof galaafto markaa dowladda somaliland waxaan ka codsan inay dowladdu u fiirsato takoorka inay dadka ka jirto dastuurkeenu waxyaalahu dhigaya xuquuqda qofku leeyahay dastuurku siinayo
in qofku xuquuqdiisa helo marka horena waa inay fahmaan dadku xanuunkan sida lagu qaado oo xanuunka ugu sida lagu qaado ay aad u adag tahay taabasho laguma kala qaado cunto laguma kala qaado dhar la wada xidho laguma kala qaado waa dhiiggaa qofka uu ku gaadha iyo galmo bes xataa dhiiggiisa hadduu kugu daato adoo nabar lahayn kama qaadaysid waa labada dhiigoo isu gudbo amba irbad qofkii muddo oo ku muddo iyadoon 25 daqiiqo hadday gaadho fayraska wuu iska dhimanaya bulshada waxaan ka codsanayaa inaan la nashiidin inaan guryaha lanaga kirayn waayo oo lanaga daayo takoorka iyo dhibaatada baabuurtii baa na soo qaadi weysay way xanuunsanayaan baa la yidhi naga daaya hal qof ay garanayaana meesha jooga dadku ma afkays wada saarsaaray madaxweyne noo soo jeeso oo hoos noo eeg waxaan markan aynu isdul taagi doonaa dhibaatada ay caruurtu la kulmaan marka mid ka mid ah qoyska hooyadii aabbaha xanuunka laga helo caruurtii ayaa inta badan goobihii waxbarashada culayska ugu badani uu ka jiro su-aal guud bay noo noqon doontaa aynu dhammaanteen isweydiinayno dhibaatada caruurta ku dhacdaa wuxuun bay ka mid tahay dhibaatada beeshinada iyo bukaanka la noolba ku dhacdo hooyadii aabbaba dhibaatada sida lagu xallin karaya waxa weeyaan keliya tan wacyigelin la sameeyo haddii wacyigelintaa la sameeyo oo dadkii laga dhaadhiciyo in xanuunkii aan lagu kala qaadahayn amba wada joog amba isag fadhi amba saaxiibtinimo amba cunto wadaag amba in la wada seexdo meel in dar la wada gashado in cunto la wada cuno macaamilkii caadiga ahay ummadda ka dhexaysa aan lagu kala qaadahayn waxay noqonaysaa inaan caruurtiina kala didin dadkiina kala didin marka wuxuu baan kusoo koobi lahaa in loo baahan yahay in wacyigelin la sameeyo anigoo taa ka faaidaysanaya waxaa laga yaabaa inay kelmaddii ugu dambeysay aan idhahdo tahay fariinta halka ka diraya waxa weeyaan markaad aragtaan qof xanuunkan qaba ama lagu sheegay bartiisu adigu isdhig adiga sideed jeclaan lahayd in lagaa yeelo marka sidii adigu aad jeclaan lahayd in lagaa yeelo qofkana ka yeel adigoo dib u raaci karaya siyaabaha lagu kala qaado ayuunbaad ka taxadiraysaa marka noloshii caadiga ahayd iyo wada noolaashihii xanuunka laguma kala qaadayo marka qofkii waan la macaamili karaynaa dadkii waan la noolaan karaynaa dadkii waan soo dhaweyn karaynaa horta waxaa jirta dadka xanuunka la nool iyaga garanay indii takoorka hadduu ku dhaco dee in xanuunka loo cuskanayo laakiin dadka aan la noolayna dee caruurtoo kaleeto sabab loo takooro ama loo faquuqa iyadu meesha ma taalo haddii markaa ay la kulmaan oo goobihii waxbarashada iyo ciyaartii iyo goobahaasoo kaleeto ay kala kulmaan maxaa xala xalku waxa weeye dee waddanku nidaam buu leeyahay waa in awood dowladeed loo isticmaalo iskuulladoo kaleeto waa in caruurta loogu celiyaa si amar dowladeed waa in lagu celiyaa waa in lagu khasbaa xataa hadduu diido waanaan la baryin haddii kalena wasaaraddu waa inay tallaabo ka qaadaa iskuulka xidhaade hadduu dad kala qaybinayo marka nidaam dawliya oo dee laga cabsanayo oo dowladnimada laga baqayo ayaa horta caruurtana ku badbaadi karta sidee loo badbaadin karaa qoyska hal qof xanuunka ku dhaco ilaa caruurtoodii la takoorayo dabeedna aanay fursad ay ku waayayaanba inay xataa goobihii waxbarashada ay waadaan horta laba baa halkaa isa saaran mid waa dhibta caruurta soo gaaraysa midna waa burburkii qoyskii labadii haddana dee isku xidhoonayso afgaraynaya si saameyn isku leh horta qoysku hadduu waxa mushkilada markuu midna qofna positive noqdo qofna negative noqdo wada noolaashi u adkaanaya awal ismay ogeyn laakiin markuu ogaado qofkani inuu lamaaniisii positive yahay way ku adag tahay is-ilaali oo mataqaanaa wixii aad ka ilaalinaysa samee laakiin qoyskaaga hayso u cararaya marka hadday gabadha tahay hadday ninkii tahay waa la kala ordaya wada qoyskii markaa burburka kaas ka yimid waa faham darrada meesha ku jirta yani qofku go-aan isagaa le markaa hadduu yidhahdo sideen adigu uga badbaadaan qoyskaaga u haysan karta hadduu garaadkaa la yimaado laakiin inta la imanaysaa way yartahay u ordaya hadday labada qof wada qabaan inta badan waxaa laga yaabaa qoyskaasi inuu sii jiro laakiin isaga laftiisa dhowr problem baa jiro dadkani markay aanay is ogeyn inay ogsogaadaan naxinta horey qaadayaan iyo mataqaanaa waxaa kusoo kordhaya psychologically baa waxbay iska bedelayaan mid kale markuu qofkii xanuunka isku ogaado uusa soo garbaduubaya xitaa shaqooyinkiisii uu shaqo tegi jiray inuu iska daaya lagala soo fadhiisto dhibaato dhaqaala timaado taasina mushkilad kala keento aad iyo aad baad mahadsantahay amiiraan markaan soo dhaweynaya amiira sidey wax u dhigan karaan xalku wuxuu noqon karayaa kow
waa in hortay basically basic waxba kama soo hadhaan basically caruurteeni qofka markuu 8 meelaha 7 iskuulka markuu yahay waa in la baro bal xanuunkan wuxuu yahay see loo kala qaadi karaa qofka see loola dhaqmi karaa sidee buu saameyn qofka yani xanuunka qaba muxuu adiga kaaga baahan shakhsi ahaan ardaygaaga negative-ka muxuu kaaga baahan markuu wacyi noocaas iskuulka ardaygii ka soo qaato waxay noqonaysaa ansanaysa markuu arko maxay hiday ilmihii kaloo qaba ama qofkii kaloo qaba taasoo kale weyn kaga badbaadi karnaa oo ilmihii waxa uu access u helayn waxbarashadiisii wato bulshada gebi ahaana wacyigeeda in la bedelo kuwaasoo kale bulshada waa in maxay ahayd qofka hadduu bos negative uu yahay qofkii aad guursan karayso waxba kaama gelin hooyadii iyo aabihii midna ilmo diin soo doontay ama jahli ka soo cararay oo waxbarasho soo doontay in waxbarashadii laga soo eriyo xaqiiqatanna inta kiisaynu hayno macallinku si toos uma eriyin laakiin bulshadeennii dhibta badneed marka horeba aynu ku dhex noolayn baa intay ka daba tagtay odhanaya ilmaha ahaa ilmo hebel ama hebel waxa uu qabaa xanuunkaasi ama kaayaga noo soo saar kuwayaga noo soo saar ama isaga saar dabeetana macallinkii wuxuu door bidayaa inuu isagu iskuulkiisii ilaashado sidii looga dareeri lahaa marka halkii shakhsi eri lahaa waxaa jira xataa macallimiin iyagoo macallin oo tamaashiirsita oon xataa waxyaabihii HIV ku gudbinaya waynu soo maqalnay tamaashiirsitoo jahligii oo ilmihii kala dadaalaya oo kala cararaya oo wax u dhigaya in lagaga eriyo shaqada oo lagu yidhaahdo aduu HIV positive fatay si toosa weliba maamulkiisii ugu yidhaahdo oo xaya oo jiro oo jooga oon hadhow kadib aan la wadaagi doono agaasimahayaga markaas xalku wuxuu noqonayaa inaynu sida ay sheegtay walaashay in beyska kasoo dhisto oynu waxbarashada bilowga aynu ubadkeena ugu darno oynu tarbiyadda ubadkeena inaga iskaga samaysan natural bay noogu abuuran tahay inaynu wax isku cayno laakiin inaynu inagu ka korno oynu diiniyana uga korno dhaqan ahaana uga korno taasunbaa xalku noqonaya maama soo dhow waan dhowahay horta aniga igu dhacdayba aniga xaadir baba igu dhacday macallin ilmahaygii ka soo saaray malcaamadkii macallin qur-aan buu hawlay ilmahaygii waan geeyey waan soo qoray wuu u dhigay markuu u dhigay buuggii iyo qalinkii iyo kitaabkii statement bay kasoo noqday iyo lacagtii sidaa markaan malcaamadii u geeyeen qoray anigu waan ka imi waan isu adeegay carruurta waan ka imi 4 dumara ka dibata waa kilinkan deganaano dabeeto waxay leedahay gabadhaas xanuunkaas la nooshay dee ilmihiisa uu la nooliyey malaay dee anaga ilmahayaga ma ka agdhigan karno xitaa hadday islaayeen dee gabadhii way na soo gutataysay lacagtii iyo wixii iyada sayto ooyeysa iisoo gashay maxaa dhacay waan ku uri macalinkaasa igu dhibati 4 dumar ka dibatay 2 ii sheegtay garata 2 kalena isagaaba ii sheegi doona juuq iyo jaaqtoona maadhaca kuro iska fadhiso masaacan siiyey ayar baan big idhi taliya amidna galaadhaaba haystay saldhigaa kalalka waanu tagay taliya waxaan kuri saasay igu dhacday gabadhaa iyo gabadhaa weeyaan macalinamadina waata yidhi iska tag marka isdeji iska tag waagu markuu bariyo 8 subaxnimo halka ayuu ka wuu yimi waanu tagay xaajiyad ciidan ii raaciyey malcaamadii waan tagnay bartaa loogu yeedhay macalinka waxaa lay maxaad sababta ku samaysay ilmaha yar aad uga sartay malcaamadda sheeg daaninka markaas ay yimi buu yidhi gabadhaas xanuunka salan taliya uu xidhay ninkii malcaamadii 7 days baan la dhiganay inantaydii markii dambe qasab baan lagu laba qof oo kaliya ayaa waqtigoyna siinaya markaan lagu arko koodhka komishanka naga xiran ma meeshan u shaqeysaa waa lagu oranayaa mad iska daysid xataa facebook haddaad soo dhigto waxaa lagu oranayaa nin waxaan xunaad maalin walba soo dhigto mad ka daysad ka qaadid markaa bulshadiiba horta marka koowaad saas ka qabta haddii imika wacyigelintu waxay ka baxdaa raadiyoyada tviyada jaraa-idada iskuulaanu tagnaa garoomada ciyaarahaanu tagnaa wacyigelin badan horta waanu sameynaa laakiin markuu qofkiisa uga soo horbaxay isagoo facebook isticmaalaya oo arko HIV baa sidaas markiiba qofku is dhaafinaya oo wuxuu aaminsan wax qaldan buu ka aaminsan inuu qof xanuunkii la nool la kulmo oo uu la saaxiibo uu la hadlo taana hadalkeeda badaa horta guud ahaan waxaan isla qaadanaa caawinteena meesha fadhidaa dadkana gaarsiinaynaa inaan HIV uga ahayn xanuunka dadka xun waxaa qaadi karaysaa hooyo miskiina oo ama ninkeeda u keenay ama sifo kale ku qaatay waxaa qaadi karaya qof miskiina oo shaqaale caafimaad irbadi mudday waxaa qaadi karaya ilmo yaroo bilaa dembiya oo laga yaabo in hooyadii ka qaaday
waxaa qaadi karaysaa inantaa la kufsaday oo kaleeto inay gurigooda ka soo baxday oo la kufsaday marka macnaheedu maaha don't be judgmental inaan noqonin aanu wixii maanistig mid aan ii sheegay maskaxiintii horta aynu ka saarin niyada HIV-gu maaha xanuunka dadka culimada lafteeda masaajidka loogu tago la wacyigeliyo oo macalinka qur-aanka la wacyigeliyo aadiya arinta xeerka ee inankaas weydiiyey horta waa runtii qabyo badan baa ku jirta waxa imka active waxa xeerkii lagu aasaasay iska day xitaa shaqooyinkiisa isagu uu leeyahay bay qaar badan mugdi ku jiraanoo ama wasaarad kale ku laaqan yihiin ama wax kale ku laaqan yihiin xeerkiisa yaagtiisa wixii waa daraafka wala dhamaystiray waana gudbay laakiin horta mushkilada meesha taala waxa weeyaan waxna waa wax komishinka ku xidhan anigu mas-uulka ka ah waxna waa wax meelo badan oo kale de qaranka ku xidhan oo de waqtiga qaaday inaanan garanayn laakiin anigu aan awood ay tahay inaan u lobin garayo bushkarayo awoodooda ay tahay hawsha waxaa jira mataqaanaa madaxweynuhu jeeran hadee guddi wasiiro u xil saartay baa jiro wasiirkan imika inaga baaqday maanta diinta qofta ku jiro wasiirka caafimaadka 7 wasaaradood oo yiri mataqaanaa golaha hagista la yiraahdo oo xitaa anagu komishanaa wixii aan iyaga aanu sii gudbinay iyagu sii eegaan madaxweyne jaranjar dheer baa horta hadday jaranjadu dheeraato maamulku wuu baahaa wax qabadkan uu yaraada jaranjadu way dheertahay ilaa madaxweynaha wada wax komishanku toos ugu xidhan maaha agas wuxuu leeyahay waa qolaas inay u laban garayso way iyo wad garaysaa iyaguna wada wasiiro wada mashquula oo shaqooyinka ku mashquula marka doonto inaad isku yeedho يعني وقت بدن bay kugu qaadanaysaa waxa ka daran haddana inay ku yimin waayaan iyo suuragala oo laba ama saddex ku yimaadaan marka horta jaranjada dheer mushkilad badan bay leedahay horta taasi qayb bay ka tahay problemka komishinka haysta jaranjada dheer aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin intaasi ayaanu daawadayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dood abuur oo habeenkani caawa waxaynu kaga hadlaynay dhibaatada ay bulshada kala kulmaan dadka la nool xanuunka HIV/AIDS kaasi oo ah xanuun ay dadku inta badan ay ka qabaan ama ay ka haystaan fikrado kala duwan dhammaan waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo halkan igula sugan oo barnaamijka qayb ka ahaa iyo ardayda jaamacadaha oo iyaguna inala sugnaa oo su'aalo weydiinayay dhakhaatiirta iyo ururada bulshada rayidka halkan hadda igula sugnaa dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin anigoo cabdirashiid cali baraana barnaamijka ayaan idiin daadihinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo